بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. waxaan doonayaa halkan kolley runtii inta badan garsoorku anagu ma hadal badnin oo dasa siyaasadda ma nihin laakiin waxyaalihii u baahan cadayn ee laga maarmi waayo inaanu cadayno anagoo raacayna magaranaysaa sharciga iyo xeerka iyo mihnada ama shaqada aanu hayno ayaanu hadi jeer samaynaa marka maanta waxaan idinku yeernay waxa jira arintii go'aanka ay ka gaadhay maxkamaddu kayskii uu la xiriiray weydikii ogaa kayskaasi aad buu marka hore wuxuu nagu yimi rafcaan oo mu ahayn dacwaday maxkamaddu bilowday wuxuu nagu yimi rafcaan ahaan marka dacwaduna markay rafcaan ku timaado waxaan doonayaa halkaa inaan sharaxo maxkamadda sare dacwado badan baa ku yimaada rafcaan oo loo soo ambiil qaata waxay ka yimaadaan maxkamadaha Hargeysa gobolkii degmada iyo kuwa rafcaanka togdheer sool sanaag awdal dhulkoo dhan bay ka yimaadaan marka dacwadu markay dhamaato maxkamadda sare waa halkii ugu sareysay galka iyo dacwada waa la celiyaa waxa lagu celiyaa maxkamaddii soo bilowday dabeedna iyada fulisa marka imika dacwadan ucud oo kale waxay nagaga timi guddiga diiwaangelinta markaanu anagu xukunkoodii un baanu eegno laga cabanayay oo rafcaan laga soo qaatay wax ka xukunkoodii un baanu wax ka bedel iyo kaabis ku sameeyay wax ka bedel iyo kaabis maanu taaban dabeedna galkii waxaanu celinay sida aanu maxkamadaha kale ugu celino waxa galkii aanu u celinay guddiga diiwaangelinta 5tii bishii 10aad 2016 oo uu noo saxay gudoomiyaha guddiga diiwaangelintu sababtoo ah iyaga fulinaya iyaga ilaalinaya iyaga markaa dabagelaya xukunkaasina koodii buu ahaa laakiin maxkamaddu wax ka bedel iyo kaabis bay ku samaysay marka iyaga laga filayaa inay fuliyaan oo ilaaliyaan oo way garanayaan intaas sharci qaanada labada dhinac la talinayna way garanayaan marka dhinaca marka la eego maxkamadda uma taalo shirarka axsaabta annagu ma maamulo ma diiwaan gelino liisaskooda ma hayno shirarkooda ma xaadirno hadduu dhibaato ka timaado ma yimaadaan waxaasoo dhan waa shaqada guddiga diiwaangelinta oo imika maalintii tusaale ugu dambeeyay shirkii wadani way fadhiyeen kii kulmiyay fadhiyeen shirarkan ay u cud imika labada garab oo kale ku kala baaqeena iyaga laga filayaa inay ilaaliyaan oo ay magaranaysaa u eegaan sharciga xeerfoodin sida uu siinayo qodobada awoodda siinaya iyo go'aankii iyagu ay soo saareen ee wax ka bedelkii kaabista ay ku sameeyeen maxkamadda sare ay ku samaysay iyo xeerar kale dalka u yaala marka iyaga eegaya shirarkan lagu baaqay ma sharci baa shuruudii ma buuxinaysaa habkaa loogu baaqay ergadu sida yihiin maxaa lagu salaynayaa waa shaqadooda waayo maxkamaddu urur lama xidhiidho annaga dacwadda iyaga ka timaado rafcaan noo timaado markaan go'aan ka gaadhno waanu celinaa galkii oo dhammaystiranna xilligaan idin sheegay 5tii bishii 10aad ayaanu guddiga diiwaangelinta galkii oo dhammaystiran dib ugu celinay marka taa waxaan doonayaa halkaa u caddeeyo maxkamaddu meel laba kama soo gasho fulinta xukunkii ay soo saartay xukunkaana mid ay iyadu bilowdo maxkamadaha ka bilaamay muuhayne mid ambiil rafcaan ku yimi buuha markaan wax ka bedel iyo kaabis ku sameynay waanu celinay midna waan idin sheegayaa oo xukunka markii aanu darsaynay waxaanu ku dadaalay cadaaladda waayo waxaanu eegaynay xeerarka u yaala wadanka ee xeer foodin ka mid yahay waxa kale aanu eegaynay maxay hayday heshiiskii labada dhinac ay galeen maxaa ka dhaqan galay moodan dhaqan galay shuruud miyuu lahaa taa anagoo ka duulayna waxaan ku dadaalnay siday cadaaladdu tahay oo tii ogaa dhinaca kalena labada dhinac way aqbaleen wadaweyninka arkaayo way aqbaleen way soo dhaweeyeen marka inay maanta laga daba yimaado may hayn way aqbaleen way soo dhaweeyeen maxkamaduuna had iyo jeeraale cidna ma raali geliyaan cidna duulaan kuma aha cidna kama soo horjeedaan cidna khalad ay samaysay ama mas'uuliyaddeedu ay ka soo bixi weyday ama 10 sano ha ka soo wareegto ama 5 sano ha ka soo wareegto ama 4 sano ha ka soo wareegto uma mas'uuliyadda ama shaqadooda ka soo bixi waayeen uma qabato waxa qoran ayuun bay raacdaa maxkamaddu waxa qoran maxaa ka dhaqan galay heshiiska maxaan dhaqan galin maxaa xeer yaala kaasay ka duusha marka kaasaanu ka duulay waxaananu aad ugu dadaalay inta awoodeeda inaanu cadaalad samayno oo aanu magaranaysaa aanu cadaalad raacno midna halkaasi guud anoo u hadlaaya oo aan si gaar ah u hadlaynin siyaasaddu way isbedbedeshaa
marka hadii jaraal waxaan kula talinayaa siyaasiyiinta anagu siyaasiyiin ma nihin in heshiisyada galayaan ama imika ha galaan ama mustaqbalka ha galaan ama hore ha u galaan inay aad uga fiirsadaan inay dabadeedna wixii shuruud ku xidhan ansixiyaan inay xeerarkooda u eegaan inay xeer foodhiin u eegaan inay xeerarka waddanka u eegaan waayo hadhow toole siyaasaddu male saaxiib joogta mana le ma garanaysaa waxay leedahay masaalix isbedbedesha dad maanta honeymoon ku jiro isjecel baa bariis ka hor imanaya marka shayga kaliya ee ku anfacaya waxa weeye inaad waxaaga si fiican u ilaashato sharciga u eegto shay walba meel walba la dhigo la diiwaan galiyo gudiga diiwaan gelinta loo dhiibo xeeraanta loo dhiibo hay'adaha garsoorka oo dhan loo dhiibo waayo bari siyaasaddu way isbedelaysaa dabadeedna hadhow garsoorka iyo dadkan garnaqaya way ku adkaanaysaa inay wax ti raacaan markaad maanta adigu waxaaga geyn weydo wixii shardiga qodobana jirana ansaxso heshiisyada la galaya waa inay ku dhamaystirnaadaan siyaasaddu san ahaan mayso hadhow toolana dhibaatay ku noqonaysaa hay'adahan garnaqa ama guddiyaha ahaato ama maxkamadaha ahaato inay tix raacaan arrintaasina waa midaan si guud u farayo oo waxa weeyaan dee waa in imika idinka arkayo axsaabtu heshiinayaan qolaa guuraysa qolo kale qolo heshiis la galaysa wuxuudu waa inay sugtaan waa inay ansixiyaan waa inay xeerarka u eegaan waa inay xeerkooda u eegaan waa inay xeer fadhiyo haddii kale hadhow way ku soo baxaysaa siyaasadana habab badan baa la isu khiyaameeya oo waxa jira habab taana waa mid guud oo annagana hadhow dhib bay noo keenaysaayo halkaanu ka soo gelaynaa wuxuu noqonayaa dee hadhow hadduu muran yimaado markay gudiyada diiwaangelinta iyo meelaha soo maraan garsoorka imanayaan marka garsoorku waa inuu helo wax cadow ka duulo marka taana waa tala guud oon bixinayno inay magaranaysa dadku u fiirsadaan maxay hayday arrinka ugu dambaysa marka waxaan uga digayaa oo aan dee in garsoorka lagu soo degdego waayo garsoorku waa haybadii qaranka waa supreme courtkii waddanka ugu sarreeyey waa marjaca ugu dambeeya loo noqonayo iminka rag badan oo siyaasiyiini wadamo badan oo kale kusoo noolaayeen marka kuma dhacaan inay aflagaadeeyaan maxkamadda waddanka ugu sarreysa siday meelaha u tixgelinayaan u xeerinayaan waxa fiican inay waddankoodana xeeriyaan oo meeshan haybadii qaranka taala waa maxkamad ugu sarreysay waddanka ma aha urur siyaasadeed ma aha siyaasadina halkan ma taalo marka taana waxaan uga digayaa in maxkamadaha iyo garsoorka habka siyaasadda loola hadlo taasina waa midaan guud ahaan farayo waxa weeyaan mar walba marjaca loo soo noqonayo waa halkan annagana waxa waajib nagu ah cadaalad iyo garnaq iyo inaanu sharciga qoraal iyo xeer raacno annagoon cidna u wiilanayn cidna raali gelinayn cidna ka farxinaynin cidna si madax banaanna go-aan uga gaadhin oon ciidanina faragelinayn cid aan faragelinaysa waxa si madax bannaan oo dooda oo qodoba oo sharci in mahayday aan go-aan uga gaadhno arrinkaasina waa kaa waxa weeyaan waxa kaloon dee imika saa anagu hawl culus baanu haynaa garsoorka halkan hawl culus baanu haynaa waanu soo badheernay marka qof walbana waxaan kula talinayaa maxay hayday siyaasaddu way isbedbedeshaa go-aano adag baa la gaadhaa xanuunay leedahay xanuuno decision adag baa la qaadanayaa marka in loo soo badheero sababtoo ah waxa weeyaan waxaan qisooyinkan maqlay waxaa kamid a qiso kamid a ninkii maxamed ibraahim cigaal allah u naxariistee ayaa berigii militarigu inqilaabay 69kii ayaa waa tii markii dambe la xidhay xabsigii la geliyey maxay hayday 20 jiro dabadeedna qisaska qaar dee la sheegay waxaa kamid a waxaa lala xidhay sheekh maxamed macalin dabadeedna iyagoo xabsigii ku jira oo sheekh maxamed macalin la xidhay diintana isagu aada uga soo bartay oo intuu xabsiga ku jiray buu aada u bartay ayuu qisas qaar waxay sheegeen waxaa la odhan jiray ma hubo laakiin inuu ku odhan jiray sheekh maxamed oo markaan baxo siyaasaddii la waan ku noqonayaa madaxdii baan sii noqonayaa maxay hayday dee waxaan kaa filaya inaad dadkay taageero noqoto oo aad garab istaagto dowladdan oo prime minister ka ahaa ayaa la inqilaabay xabsi yaroo xabsiyada ugu adag dunidaabuu ku jiray haddana aragti fishinary buu ahaa inuu madax noqon doono 20 sano kadibna uu noqday muddo gaaban buu noqday haddana 20 sano kadib waa kii ummaddan hogaamiyey marka baasha siyaasaddu halkaa tale waxaan soo jeedinayaa waa isbedbedelaysaa waa inuu qofku fishinary ahaado oo uu aragti yeesho oo aanu maanta waxa jooga ku xisaabtamin inuu xeeriyo oo xeeriyaa muhiima oo qofku aragti dheer yeesho oo xeeriyo waliba anagu waxaan ku baaqaynaa garsoorka hal xeeriyo cadaalad baanu raacaynaa waanu ku dhagaanaynaa qofkana siyaasaduna si ay isu bedelayso wadii ka harkade license-ka ama duruusta ka socday qaadanayso marka taana waxaan eegayaa aragti inuu qofku yeesho dawayga lagaaga hoos baxaya tan baa kugu dhacaysa go-aan adag baa lagaga baahan yahay raganimo lagaga baahan annagu halkan imika raganimaanu ku fadhinaa go-aano adag baanu go-aan ka gaadhnaa aada u adag oo culus waa nuu soo badheernay waa nuu qastinay marka waxaa loo baahan yahay mihnadaha kale dadka ku shaqaynayana
siyaasadda iyo kuwa kale la mid yihiinna inay saasoo kale ugu qasiyaan oo si degan ay go'aamada u qaataan ka fiirsadaan markay guurayaan ay eegaan waxooda ay ilaashadaan laakiin inaan mas-uuliyad cid ka soo bixi weyday inaan laga filin in cid kale lagaga baxsado annaga na lagama baxsan karo meel lagaga baxsado oo na lagaga baxsano annagu ma noqonayno haybadda garsoorkana hala ilaaliyo waxa weeye ciddii go'aan qaadanaysa ama go'aano masiiri ama siyaasi qaadanaysa halkan scapegoat ay kaga baxsato kama dhigan karto anagu qaraarka iyagu cad yahay si fiican baanu u go'aaminay waa lagu qancay maxay hayday intaasaan idiin sheegayay halkanna waa meeshii ugu sarreeyey qaranka horena go'aano adag bay ugu gaadheen madaxweyneyaal doorasho isku haystay go'aan ka gaadhay oo dabeedna ku qancay doorashadii 2003 xisbiyaa hore ugu qancay ururaa ku qancay axsaab baanu difaacnay oo dawladda go'aano adag ka soo saarnay tajaarib badan baanu soo marnay aniga iyo hortay labadaba ay maxkamadu soo mareen marka in haybada la ilaaliyo lagu kalsoonaado wax siyaasado anagu aan ku jirnaana ma jiro taana waa aniga idin cadeeyo shaqa anaga noo taala maaha waa rafcaan baa la soo qaatay galkii waanu celinay waa assignment u yaala guddiga diiwaangelinta inay eegto shirarku qaabkay u dhacayaan ma sharci ba ilaa waxay awood u leeyihiin in natiijooyinka shirarka ka soo baxa sida uu xeerfoodhin siinayo inay guddigaasi tiraado sharci maaha shuruucdii looma raacin lama buuxin arrinkaas soo baxay sharci maaha ilaa awoodahaasay leeyihiin marka intaasaan doonaya inaan clarification ka sameeyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin hadalkana marka la hadlayo in meel loo dayo oo dee iminka waxa weeyaan marka maxkamadii waddanka oo dhan dee kelmado qalafsan lagu isticmaalo taasi laayiq ma aha anigu markaa afkii garsoorka oo dhan baan ku hadlayaa marka aad baa u mahadsantihiin intaas baan clarification ku sameynaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu